بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو dhawaad daawadayaal waniga kabtan Cabays halkan waa isla kabtankii waxaynu dul istaagi doonaa arrimihii Soomaaliya iyo Jubaland halkay wax marayaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu soo aaday wadankan Kenya wuxuu ku sugnaa labadii bari ugu dambeysay wadanka Kenya isagoo u soo aaday mataqaana arrimaha ka dhaxeeya federaalka iyo Jubaland arrimahooda inuu kala hadlo waynu dul istaagi doonaa waxaan kaloo dul istaagi doonaa gudoomiyihii cusbaa ee loo magacaabay degmada Badhaadhe حسن جعيرو ومقعبي مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام ويسقون عيدا ووتو الكاس وروبان صدي شلي يدين عاس يبرادي وندل استاجي دونا وحنكلو دل استاجي دونا عيدا ما دي لجيجي راس كمبوني وهالكاس جواد فلكو جيستي أينو دل استاجي دونا يدات كي هالكاس كسقنا متقنا الشعب كها وحقوق من تيرين لين عن جبلان يكسمايو ويبدأ سمر تيرين ويجانا halkaas maanta odayaashii halkaas ayaa hadlay cunaqabateyn ayaa lagu soo rogay Jubaland ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay sababaha cunaqabateynta ugu soo rogtay Jubaland iyadana waa dul istaagi doonaa waxaan ka codsanayaa intaana gudagelin barnaamijka inaad muuqaalka si shirkarayso meel fogna aad gaadhiso haddii aadan nagu xidhnayna awal hornaad flow isku ahin page-kana flow aad soo dhaxdo hadda aynu ku bilowno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wadankan Kenya ku sugnaa labadii bari ee u dambeysay ra'iisul wasaaraha ayaa intuu ku sugnaa wadankan Kenya wuxuu la kulmay مسؤولين فربضن أو كتر سنة وضن كان كيا تليها نبض سقطة يسردون كا وضن كان كيا نور الدين حاجي تليها ملتريجا وضن كان كيا وسير كعشانديجا إيه مسؤولين فربضن أو كتر سنة وضن كان كيا أيوة متقنا يلاقون من رجل زارو محو كلا كل ما هذا وحو كلا هذا إن دولة كيا أي جعان كسيس السوق بس هذا مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام إيوه إن جبلان سيد لو قبل لها جعانت الدولة فضل كان لو سجل لها ayuu kala hadlayay ra'iisul wasaaruhu balse qorshuhu suu moodayay si ka beddelan ayay kala hor yimaadeen mataqaana mas'uuliyiinta Kenya waxay dhaheen Jubaland ilaa maalinkii la qabtay waxay garan waayeen inta ay garteen saraakiishan iyo mas'uuliyiinta Kenya waa intii Xasan Sheekh Maxamuud ay garan waayeen Xamse Luga Dheere iyo Xasan Xaabsade intay garan waayeen oo waxay dhaheen ilaa maalinkii Kismaayo la qabtay Jubaland la qabtay waxay ciidamada Kenya ku sugnaayeen bay dhaheen Jubaland waxay inta ka shaqeynayeen oo dhimanayeen oo dhig baxayeen dhisida Jubaland iyo nabadgelyadeeda ayay ka shaqeynayeen waxay kaloo dhaheen idinku maanta dad Soomaaliya tihiin oo de mas'uuliyiinta ugu sirreysay wadankan Soomaaliya tihiin tabar iyo mataqaana awood aad maanta maamul idinka mid aad ku weerartaan ma leediin bay dhaheen dal soo kabmaya oo 30 sano burbursanaa oo iminka soo kamay ayaa tiin bay dhahay waa intay garan waayeen Xasan Xaabsade iyo Xamse Luga Dheere dal soo kamay ayaa tiin bay dhahay iminka hadda dad Jubaland xabad ku bilowdaan idinkoo wadankiina la wada haysto oo al-shabaab wada haysto oo wadankii oo dhan ciidamadii loogu talagalay ee iminka la soo ururinayay laftigooda la soo kabkabayay markaas dambeysay loogu talagalay inay la dagaalamaan al-shabaab aad u adeegsataan maamuladiini halkeed ku noqonaysaa halkeed tagaysaan wajiga waxa ay ku noqotay ra'iisul wasaaraha afkiisa waxa ka soo hadhay kaliya annagu dawlad madax banaan ayaan nahay meel alla meesha aan rabno ciidanka anagu geysan karaa waan mataqaana u adeegsan karaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka wadankan Kenya Nuur Diin Xaaji ayaa si mataqaana adag ula hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waa Xamse Luga Dheere wuxuu yiri taliyuhu deegaanka raas gamboona deegaan nabadgelyo ah wax dhibna kama jirin sanadihii iyo waayihii ugu dambeeyay wax ku sugnaa ciidamada Kenya garoonkan diyaaradaha iyo ciidanka ka soo dejinaysaan waxaan ugu talagalay in mataqaana horumarka ka socda wadanka ama gaar ahaan Jubaland ay qayb ka noqoto ugumaana talagelin lagu weeraro Jubaland lagu burburiyo isku soo duuba guud ahaan adugu wadanka ka yahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu kala kulmay waji gabax waxa kaloo la kulmay odayaasha iyo ganacsatada iyo waxgaradka wadanka ka yahay saaka la kulmay waxay u sheegeen inaan marnaba ha yaraatee waxaan wax soconaya ama lagu taageerayo وصحيح waxay u soo jeediyeen inuu iscasilo bay soo jeediyeen wax garadkii iyo cuqaashi iyo dhaqankii wadanka Kenya ee halka ka soo jeediyay inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha soo jeediyeen guud ahaan marka wuxuu kala kulmay Xamse Cabdi Barre halkaas waji gabax uu kala kulmay waxa laga yaabaa inuu war-saxaafeed soo saaro uu kaga hadlayo oo mataqaana arrimihii mataqaana isaga iyo mas'uuliyiinta Kenya dhaxmaray hadda aragtaan war-saxaafeed uu soo saaray ra'iisul wasaaruhu oo barnaamijyada noocaasi waxa ka hadlaya waxa la yiraahdaa qurxin baa la yiraahdaa qurxin safarkiisa baa la yiraahdaa wax ka jira ma jiro guud ahaan ra'iisul wasaaruhu arrinka halkaas wajiga wuxuu kala soo kulmay wax uga hagaagay inaba yaraatana ma jirto
انت صدقان كان دبانو قدوميه عصبه لو مغعبه دغمada badhaadhe ayaa shalay wuxuu halkaas ku haystay ciidan wuxuu ku ruqaansan halka buurgaabo iyo mataqaana ay ku dhaay halkaas wuxuu halkaas u aaday in ilaa badhaadhe ilaa raskamboon ilaa halkaas uu ciidamadiisii isagiisii halkaas ay qabtaan la degmada badhaadhe halkaas buu aaday waxaan idin sheegayaa dadka halka degan maqaabulka halka deganow waxaan idin sheegayaa inaad gudoomiyaha la shaqeysaan gudoomiyaha inaad la shaqeysaan inaad la howlgashaan ilaa badhaadhe degmadiina in la idin xoreeyo dad rabtaan la shaqeeyo gudoomiyaha ilaa badhaadhe u soconaya la socda hadda wuxuu ku sugan yahay sidaan maqlayay buurgaabo ku sugan yahay taas waa midaas intaas markaa ka gudbo raas gambooni maanta ciidamadii halkaa la geeyey ee gorgor iyo harmac laha yaa magaaladii waxay u geysteen mataqaanaa dhac dad ganacsata bay dukaamadii iyo mataqaanaa waxay ku sameeyeen arbushaadii khalkhal halkaa lacag ka dhaceen baa la sheegay ilaa 3 dukaan lacag qaateen baa la sheegay waxay kaloo maanta xabadeeyeen dad shacaba gawaari ay saareen 3 gaari bay xabadeeyeen 3 qof baa ku dhaawacantay gawaaridaas waxaa loo soo qaaday deegaan aan magaciisa dan waan aad garin oo xabeenadka Kenya xiga oo Kenya ee loo soo qaado mataqaanaa dhaawacooda lagu dabibaya waa 3 qof waxay kaloo sameeyeen waxay hadlayeen odayaasha dhaqanka ee halkaas meeshaas waxay uga iman jireen Jubbaland waxay u soo mari jireen Kismaayo uga iman jireen waxay u soo mari jireen badda ciidamadan meesha la geeyay ee ciyaal wareer ee madaxweynaha Jubbaland uu lahaa Axmed Maxamed Islaam kiniin waxay cunaan mataqaanaa la yiraahdo bilbil anu biswaasan oo aqaanabe kiniin daroogo oo bilbil la yiraahdo waligeed ma maqal madaxweynuhu wuxuu lahaa marka hore ciidanku markay lahaayeen kiniin bilbil la yiraahdo u baahannahay kiniin dawo aan moodiyay laakiin dib baan ka ogaaday inuu daroogo yahay wax marka daba ciyaalkii halkaas la geeyey dooni soo socto xagga badda ka soo socto hadday arkaan waxay moodayaan ciidan Jubbaland oo mataqaanaa weerar haddaba waxay la dhacayaan baasuuki 3 doomood bay 3 maalmood isku xigtay midba baasuuka kurdeen sidaas markay dhacday ayay Jubbaland guud ahaan halkaas waxay u jartay xarka wax u dhaqaaq kara ma jiraan leeyahay dadkana meesha waxay uga iman jireen halkaas ciyaalkan meesha la geeyay iyaga baa dhanqalan wax alla waxay haystaan ma jiro waxaan ugu baaqaynaa marka xasan xaabsada iyo xamsan luga dheere wax kale dadka iyagoo ay tarayaan ma jirto waxay u geenayaan ma jirto ciyaal weerada meesha geeyay inay dadkaas masaakiinta ay halkaas ku baqtay dhaqalan ku noqonaya in ciyaal weerada meesha ay geeyaan ay ka qaadaan ciyaal weerada meesha ay geeyaan dadka dhac ajrubo u geystay ee barakac u geystay waxa kaloo la sheegay oo idinka dhaaf inay gabdho kufsi u geysteen 3 gabdhood baa la sheegay inay kufsi u geysteen ee magaalada ugu geysteen ilaa habeen hore ilaa xaray marka meesha waxa gudaha wax la soo geeyay waa wax mooryaan ah oo xarigna uu sixir waa wixii xamar xabada qufqac xabada uu ku hayo ee meel kasta mataqaanaa control xabada madax iska dhacay dadka xabada madax iska dhacay way gudaha meeshaas marka waxay ku sugan tahay xaalad halis ah bay ku sugan tahay raas gambooni iyo mataqaanaa dadka ku sugnaa wixii ka soo kordha Jubbaland iyo xaaladeeda iyo arrimaha Soomaaliyana halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa aad iyo aad u mahadsantiin muuqaalkaas idin soo gaadho